wararka ugu hadalhaynta badan saaka dalka Suuriya waxa kamida in mucaaradkii dalkaasi la wareegay ay gabi ahaan xabsiyada ka sii daayeen maxaabiistii ku xirreed iyaga oo hal ku dhig uga dhigay dhamaadka waayihii cadaalad darrada ee xukuumadda Bashar al-Assad hogaamiyaha mucaaradka hubaysan ee Suuriya Abu Muhammad al-Julani ayaa ku dhawaaqay in hay'adaha dawladda ay shaqadoodii sii wadi doonaan una dalka مسؤول كي هي رئيس الوزراء حكومة قبل كده دعاء بشار الأسد بنك كله جميع معارض كسوريا قاموا وكم ممنوع أيوه إن أنجدها عاصمة دمشق لجنه ذكرين وحبضاه ولوجود بلدة أيوه جوش الجار غير سوريا ولو أي مساجد هذا كسرعته تكبيرته يسوع بحياة إلهي اللي يقوم هذا علينا أيوه إنه عرسكي كدر قاضي شعب وينها كنا العاصمة دمشق يجودهم بدلك سوريا وأركت هاي أو أركيسن دبت لقصة مري إلا ريده بقولتوي حكم كجوكتي كنتني يصدح سنة غير على أسد مدحوينها حتى كعرّي دمشق وأول الحق الجن ماله كودن بيه أي أفر يلا تنصنع ما ملأي دلكاس هذا بقى Soomaalida xukunka jecel maxay ka baran karaan hogaamiyaha la ceyrsaday ee Bashar al-Assad meel kastaba ka joog Soomaaliya waa in aadan kursiga isku dhajin hadiiba aad dalkan madaxweyne ka soo noqotay dadkan ay ku ogolaadeen in aad hogaamiso mar iyo labo casharka labaad ee ka baran karaana waxa weeye dad midaysan ayaa guul gaari kara waa inay dadka Soomaaliyeed midoobaan oo wax fahmaan awooddoodana aaminaan qodobka saddexaad ee laga baran karo waxa weeye in si kasta oo aad shacabka u cadaadisid u baqdin gelisid u gumaysatid ugu cagajuglaysid waa khasab in adiga maalin uu lagu midoobi doono oo wa shamsi lagu qaadi doono kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena gorfeynta ee wakaaladda wararka ee Kilwe Media maanta waxaan ku dul istaagaynaa كم وها بشار الأسد كا حكم كيسي بقرتو يدا ها كعرري كنتم يصدح سنة كذب حجاسة وقبح صدي عاصمة دلك سوريا دمشق داول يا إنت إنه نقول ذقلين يسدوا حقوق كوهري يسدوا حقوق كجدجي يصومالي محيك بركرتها سيد حقوق كلاقط وري وجميع سوريا بشار الأسد بقالك سوريا إساك النقطة مثل جولستي ayaa 4 sano ugu dambeysay si weyn looga dareemayo dunida kaas oo sababay in meel kasta lagu arko dadweyne qaxooti ah oo ka soo cararay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday dalka Suuriya madaxweynihii la baacsaday ee Bashar al-Assad waxa uu ahaa da'da saddexaad ee wiilashii uu dhalay Xaafid al-Assad madaxweynihii hore ee Suuriya oo xubin ka ahaa xisbigii Bacas kaas oo sanadkii 1971 sidan oo kale afgambi kula wareegay xukunka 1994 waxa shil gaari ku geeriyooday walaalkiis ka weyn oo loo diyaarinayay inuu madaxtinimada ka dhaxlo aabihiis sidaas darteed ayaa Bashar al-Assad oo aan lagu batirinayn ehel siyaasadeed lana filayn inuu siyaasadda marun ka soo dhex muuqan doono looga yeeray jaamacadu ka dhiganayay caafimaadka dalka Ingiriiska si uu la wareego talada dalka marka uu aabihiis geeriyoodo maadaama wiilkii ka weynaa ee dhaxli lahaa boqortooyada aabihiis uu shil gaari ku geeriyooday waxyaalaha la yaab kale ee hadda ay ku socoto Soomaaliya waxa kamida Bashar al-Assad si uu xukunka u qabto ayaa dartiis dastuurka dalka wax looga bedelay sanadda 2000 bishii 6 oo uu geeriyooday aabihiis taasoo ay kaliftay xilligaas inay ahayd caqabadii qabsatay inuusan gaarin deeda lagu noqon karo madaxweynaha hogaaminaya dalka Suuriya isagoo oo jiray 34 sano maalmuhu isu ekaa baarlamaankii dalka ayaa 2000 dastuurka u bedelay inuu hogaamiye dalka ka noqdo Bashar al-Assad iyagoo oo ku jaangooyay deediisi saxda ahayd kana dhigay 34 sano inuusan ka yarayn qofka xilka madaxweynaha dalkaasi qabanaya